Fahad Yaasiin ayaa ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland xilli la ogaaday ujeedka safarkiisa. Taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland. Fahad ayaa la sheegayaa in socdaalkiisa uu yahay mid qarsoodi ah, isla markaana uu la kulmayo odayaasha dhaqanka ee beelaha. Ujeedka ugu weyn ee safarkiisa ayaa waxaa lagu qeexayaa in ay tahay sidii uu daaqadda uga saari lahaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Deni ayaa waxa uu haatan wajahayaa loolankii ugu adkaa oo uga imaanaya siyaasiyiin iyo xildhibaano ay maalgelisay filla Soomaaliya. Xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu adkaa, waxaana haatan muuqanaysa in aysan jirin wax isu soo dhawaanshiyo ah. Xukuumadda federaalka ayaa isku dayeysa in ay maquuniso Puntland oo si cad uga soo horjeesatay inay isdiibto. Fahad Yaasiin ayaa ah ninka ugu awooda badan dowladda nabad iyo nolol, waxaana la rumaysan yahay inuu yahay ninka keliya ee gaara go'aanada waaweyn.